kusoo dhow maamul wanaag podcast. magacaygu waa Mahad Waasuge, waxaan ahay agaasimaha Somali Public Agenda iyo sidoo kale martigeliyaha maamul wanaag podcast. Soomaaliya waxay wajahaysaa caqabado badan oo xagga dowlad dhiska ah. maamul wanaag podcast waxaan si qoto dheer ugu falanqaynaa arrimaha la xiriira dowlad dhiska iyo maamul wanaaga. waxaan ku marti qaadnaa cilmi-baarayaal ka tirsan Somali Public Agenda, mas'uuliyiin dowladeed iyo khubaro si loo gorfeeyo arrimaha dowlad dhiska Soomaaliya. Podcastigan oo aan iska kaashanayno Somali Dialogue Platform ama madasha wada hadallada Soomaaliyeed oo ah mashruuc uu fuliyo Maxadka Rift Valley. waxaa marti iigu ah maamul wanaag podcast Cabdi Caynte oo aan kala sheekaysan doono doorashooyinka Soomaaliya. 9 January golaha wadatashiga qaran ayaa soo saaray heshiis ka kooban 18 qodob oo la xiriira dhamaystirka doorashada Soomaaliya, gaar ahaan doorashada golaha shacabka. heshiiskaas kadib waxaa bilowday dardargelinta doorashada iyadoo la soo saaray liiska kuraas badan oo qaarkood la doortay, qaarna la filayo in maalmaha soo socda la doorto. sidoo kale cabashooyin ku aadan maareynta kuraastaas ayaa ka soo yeertay qaar ka mid ah musharaxiinta xildhibaanada. xaaladda hadda ee doorashada, waqtiga doorashada loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo hanaanka doorashada iyo sidoo kale in suurtagalnimada in laba deegaan doorasho lagu qabto iyo arrimo kale ayaan kala sheekaysan doonaa. Cabdi Caynte wuxuu dhowaan ahaa sarkaal ka tirsan qaramada midoobay una qaabilsanaa xiriirka dibadda iyo qorsheynta istiraatiijiyadeed. ka hor inta aanu ku beerin qaramada midoobay wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo markii dambena noqday la taliye sare ee madaxweynaha. waa mid ka mid ah asaasayaasha iyo agaasimihii hore ee Macadka Heritage ee siyaasadda. wuxuu sidoo kale wariyay itifaftira ka soo noqday BBC, VOA iyo Al Jazeera. kusoo dhow Cabdi maamul wanaag podcast iyo stuudiyaha SBA podcastiga. Cabdi, waxaan rabaa inaan ku bilowno qiimeyntaada heshiiskii la gaaray 9 January ee golaha wadatashiga qaran ee ku aadanaa dardargelinta iyo dhamaystirka doorashada. heshiiskaas maxaa ku qiimeyn lahayd, muxuuse kula muuqday? mahad waa mahadsan tahay. runtii heshiiskaas iyo kulankaba saldhig waxaa uu ahaa cabashooyin aad u fara badan oo kasoo laabtay doorashada. tabashooyinkaas oo la xiriiray in boob qaawan lagu sameynayo doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. boobkaas iyo cabashadaas tirada badan la waxay keentay in madashii qaranka isu timaado la yiraahdo habraaci wax lagu boobay aan wax ka saxno. nuxurka marka kulankaas wuxuu ahaa habraaci in la saxo. aniga haddaad i weydiitay waxay tahay dadaal fiican ayuu ahaa. waa loo baahnaa in weliba ra-iisul wasaaruhu uu hoggaan qaato oo uu yiraahdo waxbaa qaldan aan saxno. laakiin waxaa muuqata laba arrinaa muuqata. habraacyadii qayb ka mid ah waa la toosiyey. in badan oo ka mid aan iraahdo waa la saxay oo qaldanaa oo keenaya in wax la boobo. laakiin habdhaqanka siyaasadeed halkiisii u maraya. farqi weyn aa u dhexeeya habraaca iyo habdhaqanka. habdhaqankii marka boobka kuraasta ahaa markii January 9 wixii ka dambeeyay lagu noqdo dowlad goboleedyada la yiraahdo la dardargeliyo, halkii uu ka sii socdaa. taas waa qodob. tan labaadna waxa waaye habraaca ruuxiisa dad badan waxay filayeen in waxa la tabashada keenay ma ahayn in shaqal laga bedele. waxay ahayd nuxurka habraacyada doorashada oo markii hore ay salaxdeen dowlad goboleedyada in la toosiyo. taana runtii ma aysan dhicin. marka anigu waxaan isleeyahay dhinaca markii laga fiiriyo dhinaca kale markii laga fiiriyo dhaqankii boobka siyaasadda waxba kama bedelin. Okay, aad u mahadsan tahay. waxaan rabaa waxyaabaha lagu heshiiyey qaarkood inaan dul istaagno. waxaa lagu heshiiyey in 40 maalmood lagu soo gabagabeeyo doorashada. 25 February-na la soo idleeyay doorashada. marka aad fiirisid sida ay hadda wax ku bilowdeen iyo speedka ama xawaaraha ay ku socdaan, mis leedahay in ay weli suuragal tahay in doorashada golaha baarlamaanka ama golaha shacabka lagu soo gabagabeyn karo ka hor dhamaadka bisha February? waa isleeyahay in 80% taqriiban la dhamayn karo oo ah doorashooyinka ama kuraasta yaala
laba deegaan doorasho ayaa dowlad goboleed walba loo asteeyey. deegaan doorashada koowaad ayay kuraasta u badan yihiin marka laga reebo hirshabelle. in marka deegaan doorashada koowaad lasoo gabagabayn doono ama loo dhowaan doono 25 February waa u malaynaa, laakiin deegaan doorashada labaadaa soo hari doonta oo siday ila tahayna aan laga gaari doonin. caqabado waaweyn ay ku wareegsan yihiin, marka ma u malaynaya si guud markii loo fiiriyo in jadwalkaas sidiis loogu socon doono. Okay, laakiin waxaa rajo ka qabtaa in 80% oo kale ay gaari doonto. Arrinta oo deadline-ka doorashada Soomaaliya waxay soo bilaabatay bishii dhammaadkii bishii July, hadda bishii 7 ay sii maraysaa. welina marka la fiiriyo 50% xitaa lama gaarin golihii shacabka doorashadiisii. tii madaxweynahana waa dhiman tahay. deadline horaa jiray oo lasoo qabtay oo ay ahayd in lagu soo maaragtay idleeyo doorashada, waa suurgeli waayeen. waqtiga hadda loo qabtay doorashada 40 casho ah, maaragtay yaa ka dambeeya ama maaragtay bushgaraynaya in doorashada lasoo gabagabeeyo. sidoo kale waa maxay arrimaha kale ee ku xiriirka la leh dhammaystirka doorashadan oo dhowr bilood ee doorashada cakirneed, waxyaaba badanna waa la sheegaa inay u xayiran yihiin doorashada darteed. horta mahado ayaan darrada koowaad waxaad moodaa doorashada in ay noqoto mid xor oo xalaal ah, waqtigeedii ku dhacda, heshiis lagu yahay. dadka u ololeeya inta badan Soomaali ma ah, dadka meesha caalamka la yiraahdo ayaa u ololeeya oo qeyladaas sameeya. kama maqalno mas-uuliyiinta Soomaalida intooda badan. haddii ay ka dhab tahayna 7 bilood 26% ayay hadda maraysaa. maanta aan wada hadlayno ay maraysaa doorashada labada aqalba inta hadda la doortay 40% iyo xoogaa weli dhiman. meeshaas ma marteen haddii ay dadka Soomaalida ama mas-uuliyadda maanta ay dhab ka tahay. marka horta jadwalka iyo cadaadiska jadwalka wuxuu ka imaanayay international community-ga la dhihi karaa. tan labaad wax qayb ka mid cadaadiskaas wuxuu ku salaysnaa, saa og tahayba dalku hadda wuxuu saaran yahay ama ku jiraa barnaamijka la yiraahdo deyn cafinta. deyn cafintuna waa howlo looga baahan yahay dowladdu inay qabato oo muddaysan oo jadwalaysan. howlahaasna haddii mid ka mid ah ay ku kufto barnaamijkii ama waa kala daadanaya ama gadaal u noqonaya. hadda waxaan maraynaa meel la dhaho decision point oo ah bartamaha barnaamijkaas. si aan u gaarno marka waxa la dhaho completion point oo ah meesha uu kusoo afjarmo 3 ilaa 4 sano kalaan u baahanna. hadda laakiin Maarso 4 ayaa waxaa jirta mid ka mid ah deadline-nada la xiriira deyn cafinta la xiriira. sida muuqatana dowladdu waqti uma heli doonto, kamana gaari doonto, fashil weynaana kasoo laaban doono. marka March 4 deadline-kaas muxuu yahay? maxayse dowladda hadda inkastoo doorasho lagu jiro howlahaas loo baahan yahay in la qabto ka hor 4 Maarso suuragal ma ahan miya in hadda waqti la geliyo? de horta hawsha aan ka hadlayno arrinta deyn cafintu waa arrin aad u fara badan. qayb ka mida waa in qorshe qaran la sameeyo, qayb ka mida waa in maxaa la dhihi jiray budgetka dowladda la ansixiyo oo la sameeyo, qayb ka mida waa in budgetkii korjoogteyn lagu sameeyo oo la hubiyo sidii loogu talagalay in loo fuliyo. qaybo badan uu leeyahay. hadda midda 4 Maarsa nagu soo beeganoo mid weyn ah waxay la xiriirtay miisaaniyadda dowladda. saad og tahayba miisaaniyadda 2020 ayaa maalin dhoweed golaha wasiiradu xireen xisaabteedii ay xireen. 2021 weli lama taaban oo dhammaatay iyaduna. miisaaniyad rasmi ah oo 2020 ma jirto. 2020 ma jirto. saameynta ay marka ku yeelanaysay ka mid tahay barnaamijka deyn cafinta. waxaa ka mid ah in dalku uu leeyahay miisaaniyad golayaashiisa sharcigaa soo martay maadaama baarlamaan jirina miisaaniyad oo rasmi ah ma jiri jirto. karto. marka taas waa hadda deadline-kana kor taagan. ugu yaraan in la helo baarlamaan ka hor 4 Maarso ayaa at least uu yahay hiigsiga soo maa. dabcan qoladii cadaadiska sameynaysa ku iri international community waxay u sameynayeen waxay ahayd iyaga aad ula socda barnaamijkaas iyo meeshuu maraya. si hadda u fiirisidna mar kale marmar waxaa dareemay inay iyaga nooga turid badan yihiin dalka. way leeyihiin haddaa deadline-ka misgaraysiin 2 sano gadaal u noqonaynaa.
sababtoo ah processkan waa process samaysan oo dalalka deynta laga qabo ay ku heshiiyeen haddaad mid ka mida ku fashilantidna gadaala u noqonaya. Okay, arrimo kale oo waxaa la sheegaa in mashaariic horumarineed iyo maaragtay oo badan oo Soomaali lagu taageeri lahaayoo kale xitaa ay u xayiran yihiin doorashadu. Marka ma dareensan miyaa madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo dabcan dhaqaale ahaan aada ugu tiirsan kaalmada uga timaada dibadda, cabsidaas ma qabaan miyaa maxaysan ayaga u dadejinayn doorashada? waa run. masalan waxyaabaha hadda xirmi doona bilaha soo socda waxaan u malaynayaa bisha 5aad iyaduna inay tahay waxaa ka mid ah kabidda miisaaniyadda dowladda federaalka ah oo ayaduna laga sii kabo dowlad goboleedyada miisaaniyaddooda laga sii kabaa markii ay halkan lasoo marsiiyo. iyo barnaamijyo aad u fara badan oo aan ognahay barnaamijyada masalan USAID Mareykanka uu dalka ku bixiyo 2 barnaamij waaweyn uu lahaan jiray, mid geel la dhaho iyo mid TIS Plus la dhaho. labadiba hadda waa calaqan yihiin meelay ku xayiran yihiin. waxay xayiran qayb weyn oo kamid ah waxay rabaan inay hubiyaan wadanka horta doorasho ma ka dhacay dowlad ma yeelan doonaan. UK barnaamijkooda ugu weyn SSF Somali Stability Fund waa dhamaaday qaybtiisa 2aad qaybta 3aad dibay waxay ugu dhigayeen inay hubiyaan doorashadu inay soconaysay in kale iyo in badan oo la mid ah. marka su-aashaadii ahayd dadkan mas-uuliyiinta waxaas kuma baraarugsana miya, waxaan dhihi karaa qayb ahaan kuma baraarugsana, laakiin taas oo ah dan guud waxaa uga muhiimsan midda gaarka ah oo ah hebel ma arkinoo soo dil oo kursi kasoo qaad iyo ama mid soo sii, taasaa uga muhiimsan midda guud ayaan daradan haystan waa taas. Okay, markaa la fiiriyo doorashada dadejinteeda waxaa iyadana ka dhalanaya hadda sida muuqata in kuraas badan si sax ahayn loo maamulay oo kale iyo cabashooyin badan. marka see la isugu dheelitiri karaa doorashadiina in la dedejiyo iyo inay noqoto doorasho daahfuran oo loo dhan yahay oo processka sidii loo qortay loo fuliyo? horta doorasho dadban marba hadday tahay dee xor iyo xalaal horta meesha waa ka baxday. waxa la raadinayena waxay ahayd inay noqoto doorasho maaragtay English lagu dhaho acceptable, wax loo qaateena dadka intooda badan ay aqbali karaan. qaladaad badan iyo ceebo badan iyo foolxumo badan ay iska lahaato 2016 waa lahayd, tii ka horeysana waa lahayd, tii kasii horeysana waa lahayd, laakiin waxay ahayd qaladaadka ku dhex jiraya waxay ahayd kuwa loo qaadan karo oo xataa dadkii kursiga madaxweynaha u tartamayay ay diyaar u ahaayeen inay ku tartamaan sababtoo ah waxay u arkayeen meelay ka dhex kaluumaysan karaan. laakiin hadda dadka tartamayaasha ah haddii ay sidii maalin dhaweed oo kale mar kale haddana yidhaahdaan waxaan kuma tartami karno, waxaa ka dhalanaysa marka in doorashadii oo dhanba meesha ay runtii ka baxdo. xusuusin waxaa mudan mahado dalkeenna meeshuu ka weecday 60 sano ka hor waxay ahayd doorashadii 69 tii baarlamaanka dhacday ee sida loo maamulay oo aad iyo aad loogu shubtay oo aad u foolxumayd. waxaa taas ka faa'iidaystay oo dadka indhasar caadiya askarti dalka 21 sanana dalka xoog ku haystay, ayaguna waa kasii dareen. marka halkaasaan kasoo weecannay. doorasho lagu murmana annagu waa naqaanaa, Soomaaliyaan nahay, khibradaan u leenahay, meeshay ku dhammaato meel fiican maaha. waxaa laakiin kaloo aan daris la nahay meel Ethiopia la dhawaad xaalkeeda ka bilaabatay lagu heshii waaye nidaam doorasho ayuu ka bilaawday dagaalka hadda socda. Kenya hadda sanadkan waa foolanay, waxay la foolanay doorasho ay madaxdeeda ku heshiin la'yihiin inay siday taa wada samaystaan. South Sudan halkaasay martay, Sudan sidoo kale. marka doorasho waxay ku roon tahay in dadka dalka islaale ay isla ogol yihiin. marka waxaa leedahay odayaasha iyo beelaha kuraasta lagu matala ha loo daayo si ay ayaga ciddii matali lahayd ay ugu heshiiyaan. saas waay yani halka qodob oo taas aan ka dhihi lahay si kooban waxaa waay mahado 2000 ilaa iyo 2016 gaar ahaan 2012 iyo 2016 odayaal 135 la sameeyey oo Soomaalidu aan dhihi karo inta badan waxay heshiisay ku yihiin. hadda habraacan cusub 135 kaalintooda meesha waa laga saaray, waana meesha ay basartu ka qurunsan tahayba in laga saaray. sababtoo ah waxaa la rabaa inay marjic leeyihiin, daan boqof iyo cod la aadeen wax kale oo aan isku raacsanaa inay marjic noo yihiin. marka dabcan markii ugu dambeysay waxaa lagu heshiiyey in odayaasha la aqoonsan yahay ee beesha ay loo madax banneeyo, inkastoo maalmihii hore aanay taas aad u caddayn. arrinta mid ka mid a arrimaha ugu xasaasisan hadda doorashada socota waxa waaye in
yacni laba deegaan doorasho lagu qabto dowlad goboleedyadana intooda badan dhammaantood ba aan iraahdo hal deegaan doorasho unbay had doorashada ku wadaan oo caasimadihii ah mis leedahay deegaan doorad kasta inay suuragal tahay oo lagu qaban karo marka la eego duruufaha amni kuwa siyaasadeed ee ka jira deegaanada qaar niyo waxaa muuqanaysa maalinta ka dambeysa horta deegaan doorashada labaad si in loo avoid garaynayo oo madaxda dowlad goboleedyadu ay raadinayaan fursad ay uga warwareegaan qaarkoodna duruuf aan ognahay aa ku kalifaysaba hirshabeelle iyo jubbaland ba ugu sii darnaadaan oo deegaankooda labaad aanba tegi karin madaxdoodii aanba tegi karin teginna ilaa hadda intay meeshaas madaxda ka ahaayeen inta kalena hadda puntland oo kale hadda boosaaso culeysaa ka haysta madaxweyne siciidane intou doonaba hala ekaado galmudug hadda gaalkacyo culeys weyn kama taagna laakiin kursi in la boobo waxay ku sahlan tahay in caasimada lagu boobo dowlad goboleedka waa ka adag tahay markii deegaanka la tago taasna waa qeyb kaloo ka mid ah waxaanoo dhan nuxurkeedu marka dowlad goboleedyada madaxdeedu inay wax boobaan asalka ah marka arinta deegaan doorashada labaad ani waxaan u arkaa inay noqon karto kurtun kale oo hanaanka doorashada hadda siduu ku socdo uu ku fashilmi karo oo madaxdu intay mar labaad isu imaadaan ay dhihi karaan kuma qaban karno qaarkood kalena ay kasoo horjeesan doonaan taasna ay noqon doonto meel kaleo haddana runtii abuurta fursad ismari waaca marka had marka la eego kale hirshabeelle oo kale maamahan dhaqaaqyaa jiray oo maaragtay beledweynihii la xiriiray so waxaa muuqata in siyaasiyiinta qaarna ay rabaan laba deegaan doorasho sababtoo daaris sida ay ayaga u arkaan advantage inay ku helayaan qaarna waxay u arkaan halka deegaan doorasho marka intereseskaas kala duwan sidey kaalin uga qaadanayaan ama in labadii deegaan doorasho ay ku dhammaato in lagu qabto ama in hal deegaan doorasho lagu heshiiyey inay ka dhacdo sababta dadka qaar waxay leeyihiin rooblo kale constituency-giisa madaxweyne wasaaraha constituency-giisa waa gaalkacyo marka waa ku yara adkaanaysaa in u aqbalo in kuraastii loo soo raro maaragtay dhusmareeb oo kale yacni reer boosaas ma rabaan kuraastoodii in garow la geeyo yacni see xaaladahaas intereseskaas kala duwan ay u saameynaysaa labada deegaan doorasho horta laba deegaan doorasho waxay ku jirtay heshiiskii 17 September 2020 ma dhoweyn markii lagu soo daray heshiis in laga noqdona waxay u baahan tahay heshiis kale in la helo haddii heshiis iyadoo lagu yahay laga noqdo anigu waxba mushkila uma arko doorashadan awalba hadda doorasho xor oo xalaal meesha kama socotee waxay la calaajahay haddii lagu calaajahayo dowlad goboleedka caasimadeeda wax mushkila ma leh laakiin meesha waxa hadda looga warwareegayaba waa duruufo amni iyo kuwa siyaasadeed hirshabeelle iyo jubbaland ayagu deegaankooda labaad iyo ayaga heshiis maaha deegaanka labaad uu ka kuraas badan yahay deegaanka koobaad oo beledweynaha 25 kursi taallaa 12 kursina waxay taallaa jowhar 13 waxay taallaa jowhar ay taallaa marka taas iyadu waa uga duwantaa culeysku waa ka badan yahay gaday waxaa ka socdana waa isla ognahay oo mid dhinac siyaasad ka ah dhinac arrimo amni iyo qabiil iyo wax badan oo isdul saarana meeshaas yaalla boosaaso ayadan culeysaa ka yimid marka runtii ma sahlanaa doonto xataa hadda koonfur galbeed baraa waa deegaan doorasho labaad u ah culeys weyn oo amnihii hadda kama taagna laakiin dee waa in dadka diyaarad inta lagu qaada la geeyaa meesha ayaan darada kaloo dalka ka timid ay ka mid tahay oo aan la isu socon karin marka ani waxaa iiga muuqda meeshaas culays badan ra-iisul wasaaruhuna dee wuxuu ku qasban yahay asaga guddoomiyihii madasha isagaa ahe inuu xeerin iyo wax isku dhex wadid uu sameeyo dadka isku dhexaayo aada ku fahmay xaaladda hadda lagu jiro markaa eegtid waa maxay waxyaabaha is leedahay waa muhiim in la tixgeliyo waxyaabaha is leedahay waa muhiim in la tixgeliyo maxaase ku talin lahayd ugu dambeyn yacni sida ugu fiican ee doorashadan gaar ahaan golaha shacabka loogu soo gunaanadi kara iyadoo aanan farqaha la isku dheganayn ani waxaa ii muuqda runtii doorashadu hadda xoogaa dhaqdhaqaaq fiicana maalmahan ka socdo xagga dardargelinta intii hore waa ila dhaantaa meesha ay la-dahay laakiin waxay tahay boobkii waxba iskama bedelin arrintaas khatarteeday leedahay haddii kuraasta la boobayay ay sida ay hadda u fara badan yihiin ay usii bataan waxaa imaan doonta dad aad u fara badan oo soomaaliyeed inay doorashadan sharciyadeeda su-aal ka keenaan
waxaa kaloo imaan karta in maaragtay inuu dadka murashaxiinta u ah kursiga madaxweynaha ay diidaan inay ka qayb galaan. taa waa qodobka labaadna wuxuu yahay xataa hadda inta geedi socodkan lagu jiro kurtuma ay muuqda oo mid kamid uu yahay labada deegaan doorasho masalan haddii madaxda qaar su-aalay ka keeni karaan. waxaa kaloo ii muuqda haddii 25 February la gaaro oo kuraasta intooda badan lasoo dooran waayo ayadana su-aal kala soo baxayso oo ah maaragtay heshiiskii January 9 la galay la yiraahdo lagu soo gabagabeeyo waa la fuli waaye dood kale oo ayadana soo baxaysa noqon kartaa. marka runtii aniga mugdi badan iyo walaac badan waxaan ka qabaa inta hadda laga gaarayo in doorashadu ay iska sii socon doonto. laakiin waxaa kaloo iska dhici karta in oo dadku hadda waa dadaalayaan in madaxda dowlad goboleedyada ruuxooda inta dib loo riixo la yiraahdo war meeshaan wax ummadda ogoshahay qabta oo culayskaas iyagana ay u babacdhig waayaan. aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan. waad ku mahadsantihiin idinkana dhageysiga Maamul Wanaag podcast oo aan ku falanqeynay fulinta heshiiskii dhawaan golaha wadatashiga qaran ay ka gaareen hanaanka doorashada federaalka Soomaaliya ku xiran. podcastyadeena waxaad ka dhageysan kartaan sidoo kalena warbixinadeena ka akhrisan kartaan website-keena somalipublicagenda.org.